markaana sidaas ayaa walaalayaal faa'iido runta u leedahay oo qofku hadduu run badan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala noloshiisa oo dhan ayuu badbaadinayaa. qurdubi wuxuu ku leeyahay huwa almubaaliqu fi sidqi aw tasdiiq, qofka runta badan waa qofka aad iyo aad ugu xeel dheer runta ayuu ku xeel dheer yahay, markaasaa qofka waxaa la dhahaa qof runlow ah. waxa weeye alladii yuxaqiqu bificlihi maa yaquulu bilisaanihi, waa qofka ku xaqiijinaya ama dhab kaga dhigaya ficilkiisa wuxuu ka leeyahay carabkiisa iyo hadalkiisaba. markana waxa weeye qofka runta badan maanta hadal buu ku hadlayaa oo hadal wuxuu ku hadlayaa uu balan qaadayo ama hadal uu doonayo wax uu sameeyo ama inuu qof wax u balan qaado ama wax mustaqbalka ku saabsan inuu la fangalo. qofkaas toddobaad kadib waxaa arkaysaa shaygii inuu shaygii ka soo baxay oo uu fuliyey ayaa arkaysaa. marka ay Khadiija ku leedahay nabiga sallallahu alayhi wasallam ay ku leedahay adigu hadalka waa ka run sheegtaana, waxa weeye qofku sidiisaba hadduu runta sheego waa la ogaanayaa qofkan inuu runlow yahay waa la ogaanayaa. oo qofka beenta sheega badanaa wuxuu is dhahaa cid kuma ogaanayso, laakiinse waxa weeye sida caadiga xaqiiqada ah qofku wuxuu uu sheego in la ogaanayo weeye. sababta qof marka u sheekaysid waxa laga yaabaa qof waxan uga sheekeynaysid ogba inaad uga sheekaysid ayaa laga yaabaa. qof isagii waxan og ama kii waxan sameeyayba ina maanta waxan uga sheekaysid war hebel baa waxa sameeyay saas ina sheekada uga sheekaysid, isaguna waxa weeye waa kii sameeyay. marka qofkii markuu arko wuxuuna sameyn inaad qofkii magaranaysa aad ka sheekeynayso dhagada ka saarto wuxuu garanayaa in aad beenta sheegto ama hebel uu u sheekeeyay ayuu la kulmayaa suudhaya hebel baa si ay ugu yiri hadhowtana waxa laga yaabaa bil kadib in la ogaado in aad run badan tahay iyo in aadan run badnayn. markaana waxa weeye qofka runta badan waxa weeye waa qofka hadalka uu ku hadlo ficilka kaga xaqiijiya. marka waxa la doonayaa hadii aad hadal ku hadashid in aad xaqiijisid ficiliyan, hadii aad balan qaadid inaad rumaysid. waman yudiici illaha wa rasuulahu faulaa'ika maca alladhiina an'ama allahu calayhim. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yiri qofkii adeeca ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa wuxuu la macayahay ku ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u nicmeeyay ayuu la jiraa qofkaas oo ay ka mid yihiin min an-nabiyyiina was-siddiqiina wash-shuhadaa was-saalihiin. afarta darajo ee ugu waaweyn quraanka lagu sheegay waxa weeye kow waa nabi, in ilaahay subxaanahu wa tacaala nabi uu ka dhigo. darajada labaad waxa weeye waa darajatu sidqi, waxa weeye waa in aad runlow tahay, waa in aad runta sheegto. macnaha darajada ay runta ku fadhido eeg waxa weeye waxay ku xigtaa darajatu nabiyyin ayay ku xigtaa wa darajatu anbiya. markaana maadaama ay ku xigto garanaysaa qiimaha ay leedahay iyo weynaanteeda iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanoo fadaa'ila uu dhex dhigay ayay ku tusinaysaa. markaana waxaa la doonayaa qofku inuu ka faa'iideysto oo uu darajooyinka uu ku biro. darajatu nabiyyin cidna kuma biiri karto oo nabigii ugu dambeeyay khaatimul anbiya huwa muhammadin sallallahu alayhi wasallam. nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam weeye. nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam waxa weeye waa khaatimul anbiya, waa kii lagu soo khatimay anbiyada waxayna ma soo degayo. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku khatimay anbiyada nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam. nabi kale ee la soo diro ma jiro. saasoo kale bacd ulama waxay dhahaan darajatul anbiya laguma gaaro dadaal, waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay uu bixiyo, waa fadli gaar ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala istafa min Allah subxaanahu wa tacaala ilaahay qofka inuu doorto. laakiin darajatul awliya wa darajatul salihin wa darajatul ubad wa darajatul ulama wa hadhihi darajat al-ukhra annaha tublaq bil amal wa tuktasab biha. waxay ku leeyihiin oo kale darajooyinka ka soo sokeeya ee ka hooseeya darajatul anbiya ee ah darajada culimada, ta awlanimada, ta caabid qofku inuu cibaado bato,
ta darajatu sidiqiin darajada dadka runta badan marka darajooyinkaas oo dhan waxay ku leeyihiin waxa lagu gaaraa camal ayaa loo gaaraa oo camalkii hadii aad la timaadid ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku daraya dadkaas saalixiinta iyo dadka sidiqiinta ee runlowga badan marka hadii aad doonaysid in aad noqotid kuwaas waxaa la doonayaa insha Allah ta'ala in aad runta sheegtid oo aad runta ku dadaasid waxaa la dhahaa hadii runtu uu qalbiga galo qofku qalbigiisu haduu run miran uu noqdo oo qalbiga uu run ku sheego oo wuxuu isugu sheekeynayo ay run tahay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ya isaga waxa u dhaxeeya ay wax run tahay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala si runa uu caabudayo oo istuski iyo isweynaantii waxyaalahaas uu ka tago waxa weeye inuu isweynaysiyo qofkii haduu ka tago waxa weeye waxay ka soo baxaysaa baahirka waxay ka soo baxaysaa jawaarixda oo qofku waxa la arkayaa boosaskii dadka runta badnaa isagoo taagan boosaska sidoo wax kasta oo boos bay leeyihiin hadii laakiin aad been badan tahay waxa lagu arkayaa boosaska dadka beenta badan oo qofka runta badan badanaaba waxa kamid ah boosaska badanaaba lama tuhmayo oo qof inta la tuhunsan yahay maaha laakiin hadii xilli kasta la tuhunsan yahay way dhici kartaa qofka runta badan in mar la tuhmo oo mar laga shakiyo way dhici kartaa laakiin waa mar bis laakiin qofka beenta badan isaga sanad kastaba iyo xilli kastaba iyo maalin kastaba iyo bil kastaba waxa arkaysaa ummadii oo ka shakisan qofkaas inuunan balankiisa ka soo baxayn inuuna waxba hagaajinayn markaana qofkaas inuuna run sheegayn markaana mawaadinu tuham wa shak waxa weeye qofka laga waayo waa qofka runta badan laakiinse boosaska balanqaadka boosaska wax fulinta boosaska sheegan ma garanaysaa in uu qofkii kaga dhabeanayo boosaskaas waxa laga helayaa qofka runta badan oo qofka runta badan wuxuu balan qaado dadkii uu runta u sheegay ama dadku wax u sheegay isla markiiba qofkii isagoo oona sameyn ayaa waxay suuraysanayaan qofkan inuu balanka ka baxay balanka inuu fuliyay macnaha ka soo baxay uu balanka uu leeyimi uu balanka ma garanaysaa haduu dhaho wadan dhisay tusaalahan dadkii waxay suuraysanayaan isla markiiba qofkii inuu wadadii dhisay waxa laga yaabaa in ay wax si diyaarsadaan waxay wadada ku mar lahaayeen ama qaar far badan inay gaariyaal si iibsadaan sidee wadada u maraan maadaama wadadii loo dhisayo markaana qofku haduu run sheego waxa weeye dadku waxay ka aaminayaan wuxuu sameeyo ama uu balan qaado inuu fulinayo laakiin qofka hadii beenta lagu yaqaano dadkoo dhan baa tuhmaya oo xilli kastaba waa la tuhmaya markaana waxyaabahaas ayaa lagu gartaa qofkan inuu run sheegayo iyo qofkan inuu been sheegayo waxa weeye qofku haduu run sheegayo runtiisu waxay ka soo muuqataa jawaarixdiisa oo Abu Bakr Sidiq nabiga sallallahu alayhi wasallam xogaa khilaaf yar ayaa marmar wuxuu dhex dhacay Abu Bakr Sidiq iyo asxaabtii ridwaanullaahi calayhim waxbay qaar asxaabta qaar ayaa wax isku qabsadeen hadaba nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri hal antum tariki li saahibi idinku matihiin kuwa ka tagaya saaxiibkay وصاحبكي ما إيدينسان بكيري صوبته إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان إري تدكو أنه رسولك الله سبحانه وتعالى أيانا فقلتم كذبت دبدد وحات ترادين بين باشكتي فقال صدقت أو بكر الصديق نوحو يري هم باشكت run ayaa sheegtay markaana u fiirso oo Abu Bakr Sidiq awalba isoo qiimo kale asxaabta ridwaanullaahi calayhim oo ay garanayaan hadana wuxuu xasuusinayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam ninkanu inuu nin caadi ah oo ahayn ninkanu inuu asxaabi dhaba ah oo runta sheega uu yahay ayuu xasuusinayaa ayuu barayaa ayuu ugu soo celcelinaya markastaba uu baraya oo nabiga sallallahu alayhi wasallam maqaam weyn ayuu istaagay booskii dacwada booskii weyna ee dadka islaamka loogu yeeray ayuu istaagay
waxaa rumeeyey abubakr sidiiq bes wuxuu rumeeyeyna waa iimaankii iyo diintii iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala in keligii loo caabudo oo uu keliyahay. idinkuna waxaa doorateen gaalnimo, markaana way kala fog yihiin. gaalnimo iyo iimaan way kala fog yihiin. marka wuxuu xasuusinayaa uu leeyahay maadaama aad sidaa markaa u kala fogeydeen, wuxuu isagu doortay uu diin ahayd, idinkuna aa gaalnimo markaa aad doorateen, ogaada arrinkaasu wax sahlan muu ahayn. markaana saaxiibkay maadaama uu intaa qabtay, hala murmina oo hala doodina oo ha ka hor imaanina oo khilaafyada faraha badan ha ku badinina, iyadoo qofku bini'aadan yahay oo uu khaldamayo oo fikirkiisa ma garanaysaa xitaa hadduu fadli weyn leeyahay fikirkiisa fikir ka wanaagsan dadka kale ay keeni karaan. haddana nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu barayaa in uunan arrinkaasu ma garanaysaa arrin markastaba la xasuusnaado oo taariikhi inuu yahay.